war dadka la tashan leeyahay madaxweynaha war kabinetkan maanta joogo wax ka bedel sidoo waxba inoogu shaqeynayaan ayaan runtii madaxweynaha leenahay waxaan ku leenahay madaxweyne dadka ururi maanta dadkii aad bay u kala fogaadeen waxaan leenahay war dad doonaysa madaxweyne inaad guulaysato war dadka ururi oo ku ururi wanaaga oo ku ururi wax wada lahaanshaha oo ku ururi cadaaladda oo ku ururi waxooda inaad sidooda si cadaalada ugu qaybiso adigana maanta madaxweyne kuwii kugu soo tabacay kuwii hantida badan ku geliyey kuwii naf iyo maalba ku horay eed albaabadii ka xidhatay iska daa kuwii kale aqoonta lahayd ururi lahaydo dadkaaga ururso oo dadka ururi ayaanu leenahay madaxweynaha waxaa runtii aan kala hadlaya madaxweynaha arrinta dhaqaaluhu waa asaaska nolosha madaxweyne waxaanu leenahay dadkii way soo ootay waa lagu baktiyaya dalka dhaqaalaha furfur dowladdii ka horeysay biqaddi nadar can akhtaa'ihaa waxa weeye dhaqaaluhu circulation buu ku jira dadku rajo ayay ku noolaayeen waxbaa la kala iibsanayey dhaqdhaqaaqu wuxuu ahaa ful buu ahaa waxa weeye imika 40 sannadood baan shaqaynayay waa ma garatay dhaqdhaqaaqu aad buu wanaagsanaa laba sababood baa ahayd dad wada tashanayay ahaayeen dad waxa yaree dalku leeyahay laba meelood dadka ku celiya meesha xataa ay qaataanna madaxweyne dalka dib wax u geliyay ahaay maanta madaxweyne wixii baaday kugu waraneen barakallahu fiik waxaan ku leenahay dadkii way soo ooteen dhaqaalaha furfur kuwa iyagu dahabka iyo lacagta kaysanaya ee aan jidka ilaahay ku bixinayn fabashirhum bicadaabin aliim hantida ummadda leh islaanta indhaha la ayaa laga qaadaa ee maanta maalin walba la jiidayo ee kuwa sandaqadaha ku nool ee maalin walba laga duminayo iyadoo aan talo loo keenin baa laga qaadaa marka waxa weeye nidaamka dhaqaale ee dalku waa khalkhal buu ku jiraa madaxweyne waxaa loo baahan yahay in dhaqaalihii sidii hore haddaanad waxba ku soo kordhinayn nidaamkii kaa horeeyey raac madaxweyne waxaan kuu sheegayaa maanta dadku xamaroo la isku cunayo oo waxaa ka taagan aad og tahay oo maalin walba qarax ka dhacayo ayaa rajadii markii ay yaraatay intii madaxweyne aad joogtay ayaa waxay gaadheen halkaa loo hanqaltaago waxaan ku sheegnaa madaxweyne rajadii way luntay intaad joogtay marka waxaa la doonaya dadka inaad rajo u abuurto madaxweyne